bilowga filimka waxaana la barayaa 3 qofood oo lagu kala magacaabo Shinji Onji, Jiharu iyo Goto. si kastaba ha ahaatee ma aysan ogeyn sida ay ku soo galeen xabsigaani. halkaasna waxaan ku ogaanaynaa inuu ku dhex jiro wiil da'diisu ay ka yar tahay 15 sano, balse nasiib wanaag waxaa ku soo biirayo nin lagu magacaabo Hirosha, kaasi oo si fiican u kala fahansanaa meesha ay ku xirnaayeen. meesha ma aysan lahayn askar maxaabiista ilaaliso, balse waxaa jirtay siriq halis badan. siriqdaasi oo dadka intooda badan ay ku dhamaanayaan. inta badan meelaha ay ku xiran tahay siriqda waxaa lagu fahmayaa waxa ay leedahay kood lagu aqoonsado. muuqaalkiina waxa uu isku jarayaa nus saac ka hor, waxaana arkaynaa nin lagu magacaabo Jimmy, kaasi oo dadaal ku bixinayay sida uu aga bixi lahaa meeshaani, balse aad ayay u adkeed ka bixidda halkaani. ugu dambeyntii Jimmy wuxuu soo galayaa qol aad u halis badan. siriqda ayuuna ku dhacayaa, halkaas uu naftiisa ku weynayaa Jimmy. halkaana waxaan ku ogaanaynaa meesha in ay dad badan ku xabisan yihiin. markii laga soo tago Jimmy, Shinji Onji, Goto iyo Hiroshi, aan u soo laabano Hiroshi iyo tiimkiisa. ugu dambeyntii waxaa ku soo biirayso gabar, taasi oo lagu magacaabo Kahi. aad ayayna ugu farxaysaa marka ay aragto, maxaa yeelay wehel cusub ayay heshay. intaa kadib waxaan ogaanaynaa qofka ugu horeeya ee ka baxsado xabsigan inuu ku guuleysan doono $100,000, xuriyadiisana uu dib u heli doono. si kastaba ha ahaatee, qolka ay ku jireen Hiroshi iyo asxaabtiisa waxaa daaqada sare ka soo dhacayo meydka Jimmy, kaasi oo si xun ay u gashay siriqda. dhammaantoodna waa ay ka cabsanayaan markii laga reebo Hiroshi iyo Goto. intaa kadib dhaqaaqii ugu horeeyay ayay sameynayaan ayagoo wada jir ah, balse qolka ugu horeeyay wuxuu lahaa siriq aad u halis ah, laakiin way ka badbaadayaan taasi. oo waxaa horay aaga baaraan degay Hiroshi oo si fiican u kala garanayay meesha. si kastaba ha ahaatee, waxaa tiimka ku soo biirayo nin lagu magacaabo Ando, kaasi oo kaligiisa ku xabisnaa qol. halkaas ayayna isku baranayaan. ugu dambeyntii halkaas ayayna ka sii wadayaan safarkoodii ahaa ka bixidda halkaani. si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaanaynaa halista inta badan in ay u bareerayeen Hiroshi iyo Goto, ayagoona wax cabsi ah aanan muujinayn. Goto had iyo jeer wuxuu soo xasuusan jiray walaalkiisa, kaasi oo hortiisa isku dilay asigoon waxba u qaban karin. geerida walaalkiisana waxa ay ku reebaysaa xusuuso gaar ah, asigana mar waliba waa uu xusuusan jiray. intaa kadib ugu dambeyntii waxay galayaan qol aad u halis badan, kaasi oo haddaad shanqar yar samayso oo aad naftaada ku weyn karto. waxay bilaabayaan inay mid mid u soo maraan ayagoo maskax dheeri ah isticmaalayo, balse nasiib daro Ando ayaa dhaawac yar ka soo gaarayo halkaasi. asigan waxa uu ka cilbaxayaa si daran ugu qaylinaya Shinji, kaasi oo sameeyay shanqar. haatan waxaan ogaanaynaa meesha ay ku sugan yihiin zaa'id in ay u qolol badan tahay, ayna waqti ku qaadanayso ka bixidda halkaani. si kastaba ha ahaatee, isla markii waxaa lagu soo furayaa sun aad u halis badan. si dhaqsi leh ayayna meesha aaga soo baxayaan. dhammaantooda mar kale ayay dib u arkayaan meydkii Jimmy, weliba asigoo zaa'id u qurmayo. run ahaantii Shinji aad ayuu u cabsanayaa. haatan waxaan arkaynaa Jiharu in uu halis galayo. si kastaba ha ahaatee, Goto ayaa badbaadinayo, asigoona uu arko in uu yahay walaalkiisa ka yar oo kale, balse labadoodaba waxaa dili rabtay oo halis ay u galayaan siriqda. ugu dambeyntii waxaa ka soo gaarayo Hiroshi, in badan ayayna ka badbaadayaan saddexdooda, balse ugu dambeyntii Hiroshi ayaa siriqda ku dhacayo, naftiisa ayuuna ku weynayaa halkaasi. sidaasna 5 qofood ayay ku noqonayaan. xaqiiqdii Goto asiga kaligiis ayuu noqday, maxaa yeelay saaxiibkiisii Hiroshi waa uu ka geeriyooday, mana lahayn cid kale oo la dadaalayso. si kastaba ha ahaatee, waxaa dhiirigelinayo Ando. Shinji had iyo jeer wuxuu ahaa mid zaa'id u baqaa, asigoon aaminsan inuu meeshan keliya hal qof ka badbaadayo, kaasi oo nolol iyo lacagba isku helayo. ugu dambeyntii
Shinji iyo Ando waxay go'doon ku noqonayaan meel kaligood ay ku sugan yihiin. Goto maskaxdiisa had iyo jeer waxa ku jiray walaalkiisa, si life ayaana loo tusayaa si uu u dhintay walaalkiisa, wuxuuna isku dayayaa inuu badbaadiyo, balse waa uu awoodi weynayaa. Dabaq ayuuna iska tuurayaa. Ugu dambeyntii walaalkiisa sidaas ayuu ku geeriyoonayaa. haddan waan ogaanaynaa qaabka uu ku dhintay walaalkiisa. Goto geeridaas ku timid walaalkiisa waxay noqonaysaa mid noloshiisa oo dhan bedesho, mugdina ka dhigto. had iyo jeerna waa ay ku soo laalaaban jirtay, asigoon si joogto ah u xasuusan jiray. si kastaba ha ahaatee, Shinjin Ando waxay rabeen in ay meeshan ka baxsadaan, balse Shinjin waxaa galayo hami weyni, wuxuuna rabay keligii inuu meeshan ka baxsado, lacagtana sidaas uu ku qaato. wuxuuna weerar ku soo qaadayaa Ando. rafaad dheer kadib, Ando halkaas ayuu ku dhimanayaa, waxaana gacantii ku dilayo Shinjin. si kastaba ha ahaatee, Jiharu waxa uu isku dayayaa inuu caawiyo Goto. daaqad halis badan ayuuna ku furayaa, halkaasna siriq ayay lahayd. ugu dambeyntii Goto ayaa ka soo gaarayo, sidaas ayuuna ku badbaadayaa. haatanna waxaan ogaanaynaa dhammaantood in ay u soo dhawaadeen meesha laga bixi lahaa, keliyana ay wax yar aaga dhiman tahay, balse waa qasab inuu hal qof keliya oo baxo. waxay ahaayeen 7 qofood, 3 ka mid ah sidaas ayay ku dhimatay, 4 ayaa soo hartay. kuma nasiib u yeelan doono inuu ka baxo halkan, kuna guuleysto $100,000 iyo xuriyadiisa. ugu dambeyntii Shinjin ayay dib ula kulmayaan, wayna ku farxayaan, balse marka ay ogaadaan inuu Ando asiga dilay, aad ayay aaga cabsanayaan. Shinjin wuxuu uu rabay inuu dhammaantooda dilo, Jiharu ayuuna u sheegayaa in uu dili rabo. ugu dambeyntii waxaase ogaanayo Goto, waxayna isku dayayaan in ay ka baxsadaan, balse Shinjin ayaa soo weerarayo. Goto ayuuna dhaawacayaa, wuxuuna u sheegayaa dhammaantood inuu dilayo. si kastaba ha ahaatee, Goto ayaa ugu dambeyntii iska celinayo Shinjin. xaqiiqdiina Shinjin aad ayuu aaga xoog badnaay Goto. si kastaba ha ahaatee, waxa ay isku rafaadaanba. ugu dambeyntii waxaa la soo fasaxayaa siriqda uu lahaa qolka, sidaasna waxa ay ku qabsanaysaa Shinjin, asigoona meesha ku geeriyoonayo. ugu dambeyntii Kahi, Jiharu iyo Gotona waxa ay isku dayayaan in ay ka baxsadaan halkaasi. Jiharu iyo Kahi waa ay ka baxayaan, laakiin Goto nasiib uma yeelanayo inuu ka baxo halkaasi. Jiharu aad ayuu aaga naxayaa walaalkiisa Goto, halkuu ku xabismay waa uuna ka xumaanayaa. ugu dambeyntii Kahi waxa ay soo wadaysaa Jiharu, iridda laga baxo ayayna keenaysaa. Jiharu sidaas ayuu xuriyadiisa u helayaa, asigoona ku guuleysanayo $100,000. filimkeenana waxa uu ku dhammaanayaa Kahi oo dib ugu soo laabatay xabsigeeda, ayadoona asxaab cusub arkayso, halkaasna ay ku saaxiibayaan. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, siina share garay, channelkana subscribe soo dheh.